بسم الله الرحمن الرحيم كلامتي وعن ونكسن كسر دوّدا ورقة صمت ميديا وضبطا ورقة صمت ميديا داوديال aad ku maqli doontaan waxa ka mid noqon doona ciidamada dawladda oo muqdisho ka baadi goobaya kooxaha dad rayid ah ku laayay wadajir waxa kale oo dhageystayaal warka somnet media aad ku maqli doontaan Puntland oo go'aan ka soo saartay shirka shidaalka Soomaaliya ee ay wadada dawladda federaalka Soomaaliya maxaa keenay inuu baaqdo shirkii uu cilaamiyay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya intaasi waa qarka qodobada warka somnet media aan ku bilaabay sida aad warkaba ku maqlayseen laamaha ammaanka dawladda Soomaaliya ayaa wali baadi goobaya dadkii ka dambeeyay dil wadareed oo dad rayid ah loogu geystay magaalada Muqdisho laba habeen kahor dilkan ayaa waxa ka dambeeyay kooxo hubaysan oo la sheegay in aan qabiil ay kala dhaxaysay dadka lagu laayay deegaanka wadajir ee gobolka Banaadir waxaana wali ciidamada ammaanka aysan soo qaban dadka ka dambeeyay dilkaasi afhayeenka gobolka Banaadir ayaa xaqiijiyay in aysan wali gacanta ku soo dhigin dadkii ka dambeeyay dilalka dadka rayidka ah balse laamaha ammaanka ayaa ku hawlan sidii ay dadkaasi loo soo qaban lahaa afhayeenka waxa uu sidoo kale sheegay dadkii falka fuliyay isla markii ay falka geysteen in ay ka baxsadeen magaalada waxaana loo marinayaa in ay u baxeen dhanka gobolka Shabeellaha Hoose eheladii dadka la laayay degmada wadajir ayaa xaqiijiyay in falka uu la xiriiro aana qabiil oo ka dhacday gobolka Shabeellaha Hoose waxaana falka uu noqonayaa mid saameyn weyn ku reebay dadka eheladooda la laayay dawladda Soomaaliya wali wax war ah kama ay soo saarin sidii qoraalka kaga soo saareen dadkii bajaajlayaasha ahaa iyagoo banaan baxaya lagu laayay degmada wadajir taliyaha qaybta 27 ee ciidanka xoogga Maxamuud Maxamed Macalin Koronto oo la hadlayay warbaahinta ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay howlgalla ciidamada xoogga ay ka wadeen deegaano horle oo ka tirsan gobolka Hiiraan taliyaha ayaa wuxuu sheegay in haddii ay dadku aysan isku fiyoobeen aanan lala dagaalami karin al-shabaab isagoo tilmaamay in ay beelihii joogaan duleedka Beledweyne xilligaana ay ku biireen ciidamada xoogga dalka isla markaasna dhawaan ay dagaal la gali doonaan kooxda al-shabaab sidoo kalena shacabka ayaa waxa uu ugu baaqay in ay midoobaan la dagaalanka ka dhanka ah al-shabaab wasaaradda tamarta iyo macdanta biyaha Puntland ayaa waxay war ka soo saartay shirka looga hadlayo shidaalka kheyraadka dalka Soomaaliya ma jiro cid Puntland uga wakiil ah ka qaybgalka shirkaasi cid allaale cid danaynaysa arrimahaasi waxay la soo xiriiri karaan wasaaradda waxa lagu yiri bayaanka qoraalkan ayaa si toos ah loogu diray wasaaradda shidaalka iyo heer federaal iyo xafiisyada ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Al-Khayre hadalkan ka soo yaray wasaaradda ayaa imaanaya iyadoo madaxweyne Dani uu horay uga dhawaajiyay inaysan jirin cid Puntland wakiil uga ah arrinteeda gaarka ah si la mid ahna bayaankan waxa uu imaanaya xilli bishii Febraayo ee sanadkan magaalada London lagu qabtay shir looga hadlayo shidaalka Soomaaliya shirkaasi oo lagu soo bandhigay xirmooyinka shidaalka ayaa dhaliyay heesad ka dhex qaraxday Muqdisho iyo Nairobi oo ahayd in la xaraasho sariida ku jirta dhulbadeed ee Soomaaliya ay leedahay balse Kenya ay muran gelisay maanta oo Jimcaha kuna beegan 19 bisha Afraad 2019 ayaa qorshuhu ahaa in magaalada Muqdisho uu ka furmo shir u dhaxeeya madaxda dawladda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedyada hase yeeshee shirkaasi wuu baaqday sababta u weyn ee shirkaasi u baaqday ayaa waxa ka mid ah in ay diideen qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada si gaar ahna maamulka Puntland iyo Galmudug waxaana maamulada qaar ay shirkaasi ku xireen shuruudo adag madaxweynaha maamulka Galmudug iyo Jubbaland ayaa haatan ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxa ayna ku biiri doonaan madaxweynaha maamulka Puntland iyagoo oo halkaas shir kula qaadan doona madaxda ka socota beesha caalamka ma ahan markii ugu horeysay ee madaxda maamul goboleedyada ay ka soo horjeestaan shirka uu cilaamiyay madaxweyne Farmaajo daawadayaal warkii somnet media waa naga inta warkan warka xiriir dib u kumayno waxaan kaga tagaynaa sidaas iyo nabad